salaamullaahi calaykum asxaabta kusoo dhawaada maanta barnaamij ayaan idiin wadaa. Barnaamijkaasi waxaa la dhahaa macnihiisu ama ciwaankiisu waxaa weeyaan raad noocee ah ayaan rabnaa inaan ka tagno, ama aan iska hadla aniga raad noocee ah ayaan rabaa inaan ka tago. Qof walbo oo muslim ah ama soomaali ha ahaado ama gaal ha ahaado wuxuu rabaa inuu ka tago raad. Raadkaas waxay noqon doonaan laba shay labadaas shay oo ka mid ahi raad xun iyo raad wanaagsan. Qodobadaas oo aan aad ugu hadli doono waan kusoo laaban doonaa daqiiqado yar kadib. Saad la socotaanba adduunyadan waxaana soo mara dad fara badan. Waxaa adduunkani ka talin jiray boqortooyooyin fara badan. Marka waxaas oo boqortooyo ahi mid waliba wuxuu ka tegay raad. Raadkaas oo ah raad fiican iyo raad xun. Marka adiga waxaad tahay boqor ama boqortooyo, it means adduunkani qof waliba asaga nafsadiisa ya wax walba ka weyn. Boqortooyada maanta Ingiriiska ama boqortooyada Sacuudiga maanta waxa kuma hayaan because of naftaada ayaa adiga boqor ku ah. Ma garad, naftaada ayaa wax walba la jeceshahay. That's why marka adiga waxaad tahay boqortooyo gooni ah. Marka raad xun haddaad rabto inaad ka tagto waa adiga, haddaad rabto raad fiican inaad ka tagto waa adiga. Waxaa jiro tusaalooyin ama calaamadooyin kugu dhiirigelinayo inaad ka tagto raad wanaagsan. Iyo waxaa jira calaamadooyin kugu dhiirigelinayo inaad raad xun ka tagto. Tusaale ahaan markaan soo xasuusano taariikhda maadiga markaan xasuusano waxaa ka mid ahaa hadda sida reer galbeedka ay buunbuuniyaan ninka ugu xun ee caalamka soo maray waxay dhahaan Hitler. waxaa kaloo sheegaan boqortooyada adduunka soo martay boqortooyadii Tatarka ay sheegaan ama Mongolianka la dhaho ayay sheegaan. Mongolianku ma raba inaan kusii dheeraado, dadkaasi dad fiicani ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad dowladoodii meel walba gaadhay. Waxay kasoo bilaabatay Russia ilaa marka dambe ay gaadhay Masar, Africa ay soo gaadhay. Marka Hitlerna waad ogtihiin, idinkagama sheekeynayo, taariikhdiisii waad ogtihiin. Marka adiga you have choice, waxaa raaci lahayd adiga ku taala inaad taariikh fiican ka tagto iyo inaad taariikh xun ka tagto. Labadaba adiga ayay kaa go-aan. Marka taariikhda wanaagsan oo hadda maanta aan raacayno ma jirto qof ka wanaagsan maanta oo aan role model aan ka dhigan lahayn Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The best taariikh, the best history in the world is our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Taariikhda ugu wanaagsan ee aan maanta qaadan karna waa taariikhda Nabi Muhammad. Waxaan kale waa taariikhul maadi, ayagana waa hadda xeerkan kusoo gaarnay because of maanta haddaan af Soomaali la qori lahayn jiilkii naga horeeyay raad fiican nooguma tageen. Waa ka af Soomaali aan ku hadlayno, waa ka aynu qoreyno, waa ka aynu isku direyno, waa ka aynu ku wada xiriireyno. So marka bulsho walba waxay leedahay dad taariikh wanaagsan ooga tago, dad taariikh xun ooga tago. Ma jirto madaxweyne soo maray Soomaaliya ilaa wuxuu ka tegay taariikh xun iyo taariikh wanaagsan. Ma jirto
qof adduunkan soo maray ilaa wuxuu ka tegay taariikh xun iyo taariikh wanaagsan. Marka adiga walaalkay ah ama walaashay ah, muhiim ma ahan inaad maama tahay, inaad aabba tahay. Muhiimaddu waa inaad ka tagta taariikh wanaagsan. taariikh wanaagsan marka taariikhda wanaagsan waa wax adiga iyo ilmahaaga u fiican. Tusaale ahaan maxaa ka mid ah taariikhyada wanaagsan? Tusaale ahaan markaa yar tahay, waalidku wuxuu kaaga sheekeynayaa sheekooyinka xigmadaha leh, ama sheekooyinka qofkana garaadkiisa korinayo. Tusaale ahaan markaad fiiriso dhalinyaronimada, markaa yareed waxa lagaga sheekeyn jiray waxaa ka mid ah caraweela camal oo kalo, cigaashada camal oo kalo, sheekooyin fara badan. Soomaalida waxay leedahay murti taasoo ilmaha yari ay ku koriyaan, hadday noqoto dhanka wadajirka, hadday noqoto dhanka wada socodka, hadday noqoto xataa qofka weyn sida looga hadlo, adiga ay akhlaaq oo wanaagsan Soomaalida way leedahay. taas cagsigeedii dad xunna way leedahay. Adduunkan maanta dad waxaa jiro every second wax kusoo kordhiyo. Dad waxaa jira every second raba adduunyada in laga nusqaamiyo, oo adduunka waxba kusoo kordhinaynin, laakiin adduunka dhib ku hayo. Adduunkan aad u jeedo, dhulkan aad u jeedo, dadka ku nool waa un labo: qof nacfi kusoo kordhiyo iyo qof nacfigaasi diidan oo xaqirayo. ma garad laga yaabaa inaad qof wanaagsan tahay, laga yaabaa inaad adiga nafsadaada aad u amaan heli leedahay, laga yaabo in maalkaada u amaan heli leedahay, laga yaabo in diintaada aad u amaan heli leedahay ama uga cabsanayso. Marka sidaas lamida waxaa jiro dhalinyaro adigoo kalenta ah ayaa jirto oon rabin inay ka tagaan raad wanaagsan. Maxaa ka mid ah kuwa hadda gabdhaha yar kufsanayo, kuwa wiilasha yarka ciqaabayo, kuwa wiilasha yarka maskaxda ka doorinayo. Adiga waxaa jira waxyaabo fara badan. Adduunkan waa la kala shaqaystaa, laakiin shaqada ugu wanaagsan waa inaad positive ahaataa, always positive waa inaad ahaataa. Marka ilaahana asoo noo sheegayo inaan aanan dhimanin anagoona wada fiican haysan. Wuxuu leeyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimiin. What does that mean? muxuu ka wadaa? ha dhimanina idinkoo muslimiin ahayn. ha dhimanina idinkoo jirkiina iyo naftiina badbaadinin, oon islaamnimo qaadanin, oon diinta islaamka aan rumeyn. ha dhimanina because of wax idinka horeeyo waa jahannama iyo janno. Marka wuxuu leeyahay ha dhimanina idinkoo muslim ahayn. Ilaahay adiga waxba kaama doonayo, laakiin haddana wuxuu kula jecel yahay inaad badbaado, ayuu kula jecel yahay. marka adigana adaa nafsadaada yaqaana wax u roon. haddaad inta ka tagto adigoo wanaagsan, aakharna waad ku wanaagsanaanaysaa. haddaad inta ka tagto adigoo xun, aakhara waad ku xumaanaysaa. adduunyadu qofkii ku wanaagsan unbaa aakharna ku wanaagsan. ma garad xilligii jaahiliyada dadkii ugu wanaagsanaa iyo haddana xilligii muslimkana ugu wanaagsan. ma garad sidaas lamid haddana qofkii adduunka ku wanaagsan, aakharna wuu ku wanaagsanaanayaa. waxaan idinkiga tegayaa oon idinku waaninayaa dhalinyaroy, sida maanta jiilkii naga horeeyey ay raad fiican ooga tageen, inaan raad fiicani aan ka tagno, iyo sawir wanaagsani. sawirku waa wax hadlayo, waa noola hadlayo laakiin aan la dareemeynin. muuqaalkan waxaan idinka codsanayaa inaad faafisaan. dhimo adiga oo muslim ah, dhimo adiga oo sharaf iyo cizi leh, dhimo adiga oo afkaaga iyo gacantaada laga nabad helay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.